salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waxaanoo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka. waxaad si toosa uga daawanaysaan janalkeena Hage Media. qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbinayno ayaa waxaa ka mid ah Somaliland oo weji kale u yeeshay dhallinyaradii ay dilka toogasho ku xukuntay, sheegtayna in wararkaasi been abuur ay yihiin. dagaal qaraxyo ku bilowday oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe iyo warar kala duwan oo ka soo baxaya. tiro dhalinyaro ah oo 10 lagu qiyaasayo oo ku geeriyooday roobab ka da'ay magaalada Baardheere ee gobolka Gado. iyo Saciid Dani oo wajigaba xoogan kala kulmay shir xasaasi ah oo beesha caalamka uu kula yeeshay magaalada Nairobi ka oo uu kaga dacwoonayay madaxweyne Xasan Sheekh. haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena, nagu soo biiro oo ka mid noqo 10,000 kun oo saaxiibo ah oo halkan aynu ku leenahay. markasta email kasta oo aad joogtidna waxaan kaaga mahadcelinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato. waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee wararkeena. iyadoo weli xaaladda laascaanood ay kacsan tahay 24 saac aynu ka soo gudubnayna warar kala duwan ay ka soo baxayeen dhinaca Somaliland, ayaa waxaa wararkii soo baxayay qayb ka ahaa in Somaliland ay maxkamad military saartay 9 ka mid ah maxaabiis ay ku qabatay laascaanood. waxaana wararku ay tilmaamayaan in 9kaasi maxbuus lagu xukumay dil toogasho ah loona dhaadhiciyay xabsiga Mandheera, iyadoo Somaliland ku dacwoonaysa inay yihiin kuwa ka soo horjeeda qarannimada Somaliland ay sheeganaysay 30 sano aynu ka soo gudubnay. Somaliland ayaa beenisay in maxkamad la geeyay lana jir dilay qaar ka mid ah maxaabiistii lagu soo qabtay dagaalka magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, xilli ay si weyn u soo baxayeen wararkan oo aad u qabsaday baraha bulshada iyo warbaahinta Soomaaliyeed. agaasimaha waaxda fulinta ee Komishinka Xuquuqul Insaanka Somaliland Cabdisamed Sacad Xasan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa wuxuu waxba kama jiraan ku tilmaamay in maxkamad la soo taagay maxaabiistaasi daraawiishta ka soo jeeda. agaasimaha ayaa waxa uu sheegay in Komishinka Xuquuqul Insaanka iyo hay'ado kale oo caalami ah ay booqasho ugu tageen maxaabiista, isla markaana ay indhahooda ku soo arkeen sida loola dhaqmay, oo uu sheegay in si wanaagsan ay ahayd. waxaa jira warar been abuur ah oo la isla dhexmarayay oo ahaa in maxkamad la geeyay maxaabiista qaarkood ama jirdil loo geystay. ma jirin cid maxkamad la geeyay iyo cid kale oo wax loo dhimay, ayuu yiri Cabdisamed Sacad Xasan. maxaabiistaasi waxay guud ahaan inoo sheegeen in ay habla dhaqanka iyo sidoo kale sida loo hayaba ay ahayd qaab wanaagsan, oo meel lagu hayana ay tahay meel macquul ah. waxay inoo sheegeen in xaaladooda caafimaad ay 100% tahay, inkastoo qaarkood xasaasiyad ay ka cabanayeen, kuwana waa la tusay dhakhtarka, ayuu yiri. Komishinka Xuquuqul Insaanka Somaliland ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Somaliland ay fulisay qawaaniinta caalamiga ah ee xuquuqda dhowrista maxaabiista lagu soo qabto dagaalka sida ku qoran dastuurkeeda. xaaladda maxaabiista komishinka uu soo booqday wax cabasho ah kama aysan sheegan meesha lagu hayo. waxaase jira warar been abuur ah oo la isla dhex marayo, oo waxaa caddaynayna in waxba kama jiraan ay tahay in maxkamad la horgeeyey ama tacaddi kale lagula kacay, ayuu yiri. hadalkiisan ayaa waxa uu ku soo beegmay xilli ay aad iyo aad isku soo tarayeen saacadihii aynu ka soo gudubnay in Somaliland maxkamad military ay saartay xeerka ciqaabta Soomaaliyeedna ay ku xukuntay dil toogasho iyadoo u maraysa dhalinyaradan lagu soo qabtay dagaalka. arrintan ayaa dad badan waxay ku tilmaameen haddii Somaliland ay dhab ku noqoto in Somaliland ay fidno cusub ka horinayso magaalada Laascaanood, iyadoo Somaliland laga hayo in ka badan 40 qof oo lagu qabtay dagaalka magaalada Laascaanood, gaar ahaan kii Khamiistii dhacay oo ahaa dagaal aad u kulul, isla markaana waxaa qayb ka ah saraakiil caan ah oo ciidamada Somaliland ka tirsanaa. laakiin jabhadda SSC waxay ula dhaqmayaan si wanaagsan, iyadoo la daryeelayo, loo laab qaboojinayo, oo wax dhibaato ah oo jirdilku qayb ay ka tahay ay u muuqato inaan loo geysanaynin. Somaliland ayaa wajahaysa xaaladii ugu cuslayd ee fashil ah oo ay kala kulmayso guud ahaanba marka la eego xaaladaha cakiran ee ka taagan magaalada Laascaanood. weerar qaraxyo ku bilowday xigayna dagaal toos ah ayaa ka dhacay deegaanka Daarunimca oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe maamulka Hirshabeelle. weerarkan oo ay soo qaadeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab saakay waa berigii ayaa xogaha soo baxaya waxay tilmaamayaan in lagu soo qaaday goob ay ku sugnaayeen ciidamada macwiisleyda deegaanka. ilaa iminka ma jirto khasaaraha rasmiga ah ee halkaasi ka dhashay cid si rasmi ah uga warantay, hase haatee dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqlayeen jugta qaraxyada iyo rasaas xoogan oo in muddo ah socotay oo u dhaxaysay dadka deegaanka, ciidamadooda macwiisleyda iyo maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ee halkaasi soo weeraray.
deegaanka Daarunimca ayaa maalmo ka hor waxaa isaga soo tagay ciidamada lagu soo tababaray dalka Eritrea oo laguga soo baxay kuna yimid deegaanka Cadalle ee duleedka ka ah magaalada Muqdisho waxaana ay ka cabanayeen inaysan gaadiid haysan in raashin aysan haysan iyo daryeel kalaba inaysan haysan taasina waxay keentay in marka dambe ciidamadan lagu qasbo inay dib ugu laabtaan fariisimahooda iyagoo saldhigtay Aadan Yabaal waxaana deegaankan uu ka mid yahay deegaanadii horey looga saaray gacanta ururka Al-Shabaab sidoo kale masiibo ayaa ka dhacday daawadayaal magaalada Baardheere ee gobolka Gado xalay kadib roobab xoogan oo halkaasi ka da'ay waxay qaadeen ugu yaraan 10 qof oo ka mid ahaa dhalinyarada deegaanka baadigoob xoogan ayaa socda bal in raqdooda meesha ay ku dambaysan la helo dhalinyaradan waxaana dad badan ay tilmaameen in roobka masiibo uu watay iyadoo Soomaaliya roobabka marka ay bilowdaan masiibooyin ay la yimaadaan marka ay maqan yihiin masiibada ay la yimaadaan ay tahay abaaraha Soomaaliya ayaa cimilada isbedesha caalamka qayb ka ah isla markaana waxa muuqata in marka roobabka ay jiraan dadku aysan ka faa'iideysan oo ay ka cawdaan daadad halka marka roobabku ay markaasi baxaan oo aysan imaaninna la warinayo in dadku ay ka cawdaan abaaraha kani waa kitaabka Ilaahay waa kitaab la doonayo qof kasta oo muslima inuu barto waa kitaabka cadeynaya booska aad ka dagayso jannada haddii baad guulaysato in kastood ka xifdsan tahay ayaa ay ku egtahay gurigaaga siday axaadiista rasuulku ay sheegeen haddaba majaanis ma u weyday inaad barato quraanka kariimka ma ka cabanaysaa inaad labada gelinba aad shaqayso waxaan ku hayaa maxadka tartiilul quraan online waa dugsi lagu talagalay qof kasta oo mashquula inuu waqtigiisa siiyo isla markaana uu hab online ku barto quraanka kariimka waalidweynaha qurbaa ku nool waalid ka faa'iideyso fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada islaamka waana maxad ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigayaa barashada quraanka kariimka barashada akhriska higaada luqadda carabiga barashada afkeena Soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida kutubta fiqiga xadiiska iyo tafsiirka waxa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxaya at-tahiyaadka salaada iyo aayad kursida waalid hadda ka faa'iideyso oo hadda isqora maxadka tartiilul quraan online oo ah dugsi fac weyn oo ay sanad kasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa inaynu hore ula xiriirno maxadka tartiil quraan online SVT Naidareta ayaa daaha ka qaaday in laba sarkaal oo sarsare oo ka tirsan safaaradda Sweden ee Nairobi lagu bilaabay baarista tuhunno la xiriira musuqmaasuq iyo inay faafiyaan xogo xasaasi ah labada shaqaalaba waxaa lagu sameeyay shaqo joojin degdeg ah kiisaska mid ka mid ah wuxuu ku saabsan yahay nin sida u shaqeeya kaasoo sidoo kale wada shaqayn la lahaa safaaradda qofkani waxa uu ka shaqeeyay qaybinta dabagalka iyo xakamaynta lacagaha mucaawinada ah ee ay Sweden siiso dalalka Kenya iyo Soomaaliya waana qof maxalli ah oo reer Kenya ah sidoo kale safaaradda ayuu la shaqeynayay muddo dhowr sano kan kale waa nin muddo dheer ka shaqeynayay wasaaradda dibadeedka Sweden isla markaana mar mas'uul ka ahaa maamulidda mashaariicda gargaar oo ay ku baxday miisaaniyadan 400 oo milyan oo karoonka Sweden ah safaaradda iyo hay'adda sida oo gargaarka caalamiga ah u qaabilsan Sweden ayaa SVT u sheegtay in si dhab ah ay u eegayaan sida ay wax u dhaceen balse mar rabaan in ay wax warbixin ah ay ka sii bixiyaan ka hor baaritaanada saraakiisha sare ee la eedeeyay waa ay beeniyeen eedeymaha loo soo jeediyay oo ah inay musuqmaasuqeen lacag Soomaaliya loo waday gargaarka Swedishka ee Kenya waxa uu gaaray 493 milyan oo karoon sanadkii 2021 kaalmada Sweden ee Soomaaliya ay ugu deeqday dhanka Soomaaliya ayaa waxay gaartay 911 milyan oo karoonka dalkaasi ah Soomaaliya gargaarka la keeno ayaa la aaminsan yahay inuu yahay gargaar markasta jallaafo loo dhigo oo dadku ay siyaabo kala duwan uga faa'iideystaan Saciid Dani ayaa wajigaba xoogan kala kulmay shir xasaasi ah oo beesha caalamka uu kula yeeshay magaalada Nairobi madaxweynaha mudxuleedkiisa bilooyinka kooban uu ka arsan yahay ee maamulka Puntland dagaalka xunna horay ula galay Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa iminka wajigabax culus kala kulmay
beesha caalamka. Saciid Cabdulaahi Dani ayaa sida warbaahinta ay ogaadeen waxay diblomaasiyiintu kala hadleen arrimo ay ka mid tahay ka maqnaanshiyihiisa shirarka masiiriga ah oo ugu dambeeyey shirkii ka dhacay magaalada Baydhabo. Beesha caalamka ayaa ogaaday inaysan macquul ahayn in Saciid uu bannaanka ka taagnaado shirarkaas muhiimka ah, waxaana lagu qasbay in sida ugu dhaqsiyaha badan shirarka uu xaadiro, isaga oo looga digay inuu dhaawac u geysto midnimada Soomaali weyn. Dhinaca kale, Dani ayaa waxa uu ku fashilmay inuu safiirada ka iibiyo aragtidiisa ku aadan in uu ka sii maqnaado kulamada muhiimka ah ee siyaasadda, isagana qoondooyinka caalamka ay Soomaaliya siinayso si gooni ah loogu soo shubo akoonkiisa. Madaxweynaha wuxuu isku dayay inuu ku qanciyo beesha caalamka inay taageeraan aragtidiisa ah inuu ka sii maqnaado shirarkaas ahaatee waxay tusiyeen cawaaqibka ka dhalan kara oo dib u dhac u keeni kara guud ahaan Soomaaliya. Saciid Dani iyo kooxdiisa ayaa la weydiiyey in ay xal u arkaan in Soomaaliya ay ka dhex maqnaadaan iyagoo ah maamul goboleed ka tirsan Soomaaliya. Saciid ayaana culays badan la kulmay. Qaar ka mid ah golihiisa wasiirada ayaa la socday Saciid Cabdulaahi Dani, hase ahaatee waxaa loo sheegay shirka ugu horeeya ee bisha shanaad dhici doona Muqdishona ka qabsoomi doona inuu iska xaadiriyo. Tani ayaa waxay soo xiraysaa iridii Saciid Cabdulaahi Dani ee ahayd inuu u dhaqmayo dowlad ka madax bannaan dowladda federaalka Soomaaliya oo kale, isla markaana mashaariic waaweyn oo uu Saciid diyaarsaday inuu dhaqaale badan ku qaato ayay dowladda federaalka Soomaaliya hor istaagtay. Dowladda Soomaaliya ayaa safaaradaha saaxiibka la ah waxay u dirtay cabasho ku saabsan Saciid Dani iyo inuu yahay nin qas ka dhex bilaabay dowladda iyo maamul goboleedyada dhexdooda. Guud ahaan waa naga intaa tabinteena wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka. Muuqaalkan kan xigeentan dib ugu kulmi doono. Nabadgelyo.